marar badan dadku waxay soo baraarugaan oo adkaarta iyo ducada muhiimadda ilaahay ay ogaadaan markuu qofka il ama xasad ama jin ama qofku markuu xanuunsado ama shaqadii uu kici waayo ama cibaadadii uu ka saagsaago oo caajis uu ku dhaco ayuu ku baraarugaa ducada iyo adkaarta qiimaha leedahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinla wadaago qiimaha uu ku fadhiyo kitaabkan uu qoray Dr. Ahmed Yemani oo la yiraahdo maalin walba farxad. marar badan dadku waxay soo baraarugaan oo adkaarta iyo ducada muhiimadda ilaahay ay ogaadaan markuu qofka il ama xasad ama jin ama qofku markuu xanuunsado ama shaqadii uu kici waayo ama cibaadadii uu ka saagsaago oo caajis uu ku dhaco ayuu ku baraarugaa ducada iyo adkaarta qiimaha leedahay. laakiin waxaan rabaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu na baray waxa la yiraahdo prevention oo ah in laga hortago caajiska wasaawista xun, shakiga, qofka inuusan noloshiisa maalintaysan productive noqonin. qaabka looga hortagi kara ugu fiicanna waxaa weeye qofka inuu lahaado habdhaqan subax kasta markuu soo tooso ducadu akhrin lahaa, duhurkii markuu gaaro, casarkii markuu gaaro, habeenkii markuu seexdo. waa routine qofka muslimka ah noloshiisa wax badan kusoo kordhinaysa. marka kitaabka la yiraahdo maalin walba farxad, waxaan isleeyahay qof kasta oo muslim ah oo waqtigan hadda nool, khaasatan waqtigan ay badatay maaragtay fitantii, ay badatay maaragtay maxaan ku raadaya cabsidii iyo walwalkii, waxaan isleeyahay kitaabkani qofka muslimka wuxuu kusoo kordhinayaa qiimo aad iyo aad u weyn oo ay tahay qofka inuu iska ilaaliyo iyo wasaawista iyo isha wixii lamid ah kuwaasoo dhan ayay ka ilaalinaysaa. wuxuuna qofkaasi helayaa markuu kitaabkan akhriyo waxaa la yidhahda alwiqaayatu khayru min alcilaaj oo ah qofka marka koowaadba inuu la yimaado habdhaqan iyo style ku dhisan adkaar iyo duco u akhristo. kitaabkana taas ayuu ku saabsan yahay. qof kastoo muslim ah waxaan kula talinayaa kitaabka la yiraahdo maalin walba farxad oo Dr. Ahmed Yemani uu qoray inaad gadataan. kitaab af Soomaali ku qoran weeye, kooban, guriga hala dhigto, reerka maaragtay ha akhristaan, carruurta la wadaaga. hana noqdo kitaabkan kitaab guri kasta yaala, leanna maxaa yeelay qofka muslimka ee hadda nool ducada iyo adkaarta nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu baray iyo macaanideeda iyo qaabka loo akhristo qof kastoo muslim hadda nool ayaa u baahan. waxaan isleeyahay kitaabka waqtigiisii ayuu yimaaday, qiimo weynna qof kastoo muslimna wuu ugu fadhiyaa. هموغانينا كتاب كان والسلام عليكم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم آمين.